Hi guys, assalaamu calaykum. Waa aniga Cabdifataax Ibraahima. Halkan nagala socotaan waxa weeye Somaltech. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashar kale oo aad u muhiim ah oo noqonaya ku saabsan Linux-keena. Wuxuu noqonayaa VI editor wax loo yaqaano. Waxaan soo aragnay qaabka text file-ka loola macaamilayo. Okay, text file-ka waxaan aragnay qaabka wax lagu qorayo, qaabka loo soo display gareeyo, qaabka loo sameeyo concatenating oo macnaha file badan meel at the same file isku geynayo. Haddaba maanta waxaan eegnaa file-ka waxaad u baahan tahay inaad wax ka beddesho ama aad ku samayso modification. Haddaba qaabka wax ugu sameynaysa modification-ka wuxuu noqonayaa qaab loo yaqaano VI editor. Okay, VI editor-ku waxa weeye waa text editor-ka ugu caansan ee Linux-ka iyo Unix system-ka maxay ahayd loo isticmaalo. kaas oo ku saamaxaya in aad text file-kaagii wax kaga beddesho maxay ahayd aad waxna ku samayso. laba qaab uu ku sameynaya marka doonaysid inaad furaysid ama starting VI marka la eegayo inaad furto waxa weeye qaabka hore qaab loo yaqaan in uu isagu aad qorto VI kadibna aad magac u bixiso file-ka oo file cusub uu ku create gareeyo isagu iyo in uu ku soo furo file hore u jiray labadaba maxay ahayd uu isticmaalaya. Okay, haddaba labadaba waynu eegi doonaa inagoo file cusubna u isticmaalayna file hore u jirayna maxay ahayd u isticmaalayna. Okay, VI-ga markaynu sheegayno waxa loo isticmaalaa ama uu u jiraa laba qaab ama modes wax la dhaho ayuu u jiraa. Mode-ka koowaad waxa loo yaqaanaa command mode. Command mode-ku waxa weeye waa sida inaad file-kii save garayso, inaad quit samaysad ka baxdo, maxay ahayd navigation-iskii waxyaabahaas oo dhan ayaa loo yaqaanaa command mode-kii. Okay, haddaba maxay ahayd command mode-ku isagu wuxuu sameynayaa wax insertion sameynaya macnaha waxba soo gelin maayo kaliya ta wuxuu la macaamilayaa in aad cursor-kaagii aad dhex marin karayso files-kii adoo isticmaalaya maxay ahayd characters ama xarfahan xagga dambe ku arkayna sida J, K iyo H iyo maxay ahayd L isticmaalno labada afarta shaho left, right iyo south iyo north u kala isticmaalina in arki doona. Okay, waxa jirta mode kale oo loo yaqaano insert mode ama entering mode wax loo yaqaano. wuxuu ku saamaxayaa in aad maxay ahayd gelisid information maxay ahayd text-kaagii anu waxna aad ka bedeshid waxna aad ku samaysid. waxa kamid ah waxa weeye waa I small ah, I capital ah, O small ah, O capital ah, A small ah iyo A capital ah. xagga dambeyn ku arki doonaa. Okay, sidan hore soo sheegnay waxa jira moving the cursor-ka in aad maxay ahayd isticmaasho marka aad doonaysid cursor-ka in aad movement samayso aad joogtid file-ka isticmaalmaysid aban arrow waad isticmaali kartaa laakiin inta aanad gelin macnaha cursor-ka aad movement samaynaysid haddaanad dhex gelin ku shaqayn maayaan jihooyinkaasi kaliya waxaad isticmaalaysaa H oo noqonaysa maxay ahayd left, J oo noqonaysa down, K oo noqonaysa up iyo L oo noqonaysa maxay ahayd right. intuba waxa weeye waa small letters weeye. Okay, waxaanu eegaynaa basic editing ku saabsan. Editing-ka waxa kamid ah inaad delete samayso macnaha delete-ka waxbaad ka saaraysaa xaraf marka doonaysid inaad delete garayso waxaad isticmaalaysaa ereyga loo yaqaan ama maxay ahayd character-ka loo yaqaan X kadibna wuxuu saarayaa character-ka hadda aad joogtid cursor-kaaga wixii ka dambeeya. Okay, sidoo kale waxaad isticmaali karaysaa waxa loo yaqaano maxay ahayd upper case-ka isaguna wuxuu ku saamaxayaa waxa before character-ka kana X-kuna wuxuu ku saamaxayaa inaad move garayso ama cursor-ka aad geyso kadibna aad saarto maxay ahayd incorrect letters oo kale. Okay, waxa kamid ah deleting words-ki word ama xaraf inaad ka delete garayso waxaad isticmaalaysaa DW. Okay, waxa kamid ah deleting lines-ki inaad isticmaasho DD waad isticmaalaysaa. Okay, two line inaad delete garayso waxaad isticmaalaysaa two oo uu raacay DD. Okay, sidoo kale waxaad isticmaalaysaa D is capital ah haddaad doonaysid one by one in aad u delete garaysid. sidoo kale waxaa jira replacement-ku waxa weeye inaad shaygii wax ku beddesho character inaad character ku beddesho waxaad isticmaalaysaa R baad isticmaalaysaa kadibna character-ka doonaysid intaad u tagto ayaad R samaynaysaa kadibna waad beddelaysaa. Okay, waxaa jira replacing words-ki inaad kelmad ku beddeshid kelmad kale CW baad isticmaalaysaa. Okay,
kuwaasoo dhan waa qaar ka mid ah maxay ahayday ee kuwaad isticmaalaysaa haddaad doonaysid in aad maxay ahayday bedeshid line waxaad isticmaalaysaa c capital okay kuwan hore soo sheegnay waxa weeye insertingku 6 mid uu noqonayaa waa a small ah a capital ah a maxay ahayday I small I capital O small iyo O capital okay kuwaasna waxaan sharaxaynaa intaan ku guda jirno maxay ahayday qaybka maxay ahayday practicalka okay marka filekan maxay ahayday waxa jirta sidoo kale undogi iyo redogi kuwaas oo dhanna maxay ahayday iyaguna way jiraan macnaha qaabkii wuxuu shaqeynaya windowska oo kale okay markaad samaynaysid tusaale ahaan oo kale inaad isku xidho laba maxay ahayday file kaliya waxaad taabanaysaa ereyga loo yaqaano g kadibna waxaad dhigaysaa un lineka maxay ahayday hore kadibna labadii line way isku xidhmayaan okay waxa jira ereyga loo yaqaan undoingkii inaad shay dhigalisay kadibna aad soo celinaysid waxaad u isticmaalaysaa u small ah ama u saad u taqaanid inaad soo celisid dhammaan edit fileskii oo dhan maxay ahayday waxaad isticmaalaysaa u ama u capital ah iminka macnaha recentka haddaad doonaysid shayga hadda aad dhigalisay soo celisid u small aad isticmaalaysaa iminka shayga markaan sharaxayo maybe in seems difficult for you inay ku noqoto mid kugu muuqata aad inuu adag yahay ama aanad maxay ahayday fahmi waxaan sheegaya laakiin practicalka markaynu eegayno ayaad wax walba fahmaysaa filekana ama casharkan hadda halkan inoo yaalana linkiga waxaan soo dhigi doonaa descriptionka kadibna waad akhrisan doontaa keliyata kuguma ekayntaa casharku aan dhigayo ama casharka anigu aan sharaxayo keliyata in aad samayso keliyata ku celin fara badan ayaad maxay ahayday u baahantahay okay marka qaabkan waxa weeye waa qaabka maxay ahayday uu noqonayo maxay ahayday overview ku saabsan vi editorku sidoo uu shaqeynayo iyo waxa uu yahay okay inta waxaan ku fakaraynay inta ugu badan commandiska loo isticmaalayo in aad vi editor isticmaashid kadibna text filekaaga aad wax kaga bedeshid ayaynu halka ku aragnay sidoo kale waxaynu eegaynaa iminka qaybta practicalka ah okay waxaan ka soo hadalay vi editorka ama vi text editorka oo loo isticmaalo fileka si aad textkaaga wax uga bedeshid qaabka uu shaqeeyo iyo waxa uu yahay okay haddaba iminka waxaynu eegaynaa practicalkii baynu eegaynaa qaabka aad u isticmaalisid dhowr command baynu soo qaadanaynaa okay haddaba waxaan ku laba qaab baad ula macaamilaysaa fileka markaad doonaysid in aad textkaaga ku qorto macnaha waa file hore ku jiray aad wax ka bedelayso ama file hadda aad create garanayso aad wax ku qorayso adoo vi isticmaalaya okay waxaan odhanayaa vi let's say abdi oo kale kadibna waad dhex gashay maxay ahayday filekaaga gudihiisii xarafka e baan taabanaya let's say waxaan qorayaa my name is abdi fata okay ibrahim abdurrahman okay waxaan qoray magacaygu waa Cabdi Ibrahim okay let's say marka waxaynu eegaynaa fileka imika waxaan create gareynaynaa linekaas waxaynu u sameynaynaa maxay ahayday in aynu linekaas maxay ahayday wax ka bedelo macna linekaas qaabka loo save gareynayo ayaynu eegaynaa waxa taabanaysaa calaamadda esk macnaha oo escape u taagan kadibna waxa taabanaysaa labada calaamadood kadibna waxa taabanaysaa w iyo q oo macnaha u taagan w-duna u taagantay save q-duna ay u taagantay quit oo macnaha ka baxa okay inta marka taabatid waxaad tagaysaa desktopkaagii ama maxay terminalkaaga caadiga okay marka waxaan soo furayaa imika tusaale kale abdi baan oranayaa abdi marka dhaho waxa igu jira line-kiiba igu jira aan hadda qoray okay hadaba waxaan hadda aragnay qaabkaad wax ugu qoraysid waxaan doonayaa hadaba in aan aynu aragnay qaabkii aad u soo gelinaysay fileka cusub inaynu aragnay qaabka fileka ku jira aad wax uga bedeliso inuu noqonayo abdigan isla sidoo kale waxaad qoraysaa vi abdi okay waxaad samaynaysaa arkaysaa in uu line-kiina ugu qoran yahay line-kan haddaad doonaysid inaad delete garayso waxaad taabanaysaa dd line-kii waa la delete gareeyay okay haddaad doonaysid inaad soo celiso line-kii waxaad taabanaysaa undo oo macnaha u taagan soo celi oo small u ah haddaad doonaysid inaad macnaha line-kan character-ko kale aad delete garaysid waxaad taabanaysaa x macnaha character-kaas ka dambeeya
wuxuu delete garanayaa maxay ahayd halkaad istaagtay okay waan soo celinay okay waxaan doonayaa tusaale ahaan oo kale in aan line cusub ku soo daro line ka aan hadda taagay hoostiisa qaabkii baan ugu soo darayaa waxaan ugu soo darayaa kaliya ta waxaan taabanayaa o small ah o small markaan taabto line ka hoos buu u degayaa automatically let's say waxaan qorayaa I have two brothers okay just an example man qoray macna waxa dunteed qoraysa okay inta markaan qoro waxaan eegi doonaa hadaba qaabkii isaguna copy gareynta macna qaabkii loo copy gareynayay ayaynu isagana eegi doonaa macna qaabkii baa loo copy gareynayaa okay let's say waxaad doonaysaa line ka koobaad inaad copy gareyso waa tagaysaa line ka kadibna waxaad taabanaysaa laba jeer oo y aad taabanaysaa okay marka hore aan ka baxo iskii baan odhanay y baan taabanayaa macnaa y markaan taabto waxa weeye line ka hortiisa inaan ku create gareeyo ama hoostiisa okay marka let's say waxaan doonayaa line ka I have two brothers ka hoostiisa inaan ku create gareeyo kaliya waxaan taabanayaa b small ah oo macnaa u taagan paste oo macnaha line ka hoostiisa igu create gareeyo okay one more time waxaan doonayaa line ka dushiisa hadda taagan inaan ku qoro waxaan taabanayaa o small o capital ah okay deetana waxaan ku qori doonaa tusaale ahaan oo kale I have two friends okay let's say what just an example oo kale waxaan leeyahay laba asxaabaan leeyahay okay waxaan doonayaa inaan hadda sameeyo qaabkii maxay ahayd selection ka ahaa macna selection ka inaan sameeyo ayaan u baahanahay imika kale maxaan sameeynaa waxaan taabanayaa v capital ah okay waan dul tagayaa macna halkii aan taagnaa wuu select gareynaya haddaan doonayo inaan waxa iga hooseeya select gareeyo j baan taabanaya haddaan doonayo waxa iga sareeya hooseeya baan leeyahay j baan taabanaya haddaan doonayo waxa iga sareeya waxaan taabanayaa k macna waan soo aragnay movements ka soo dhan okay haddaan inta doonayo inaan delete gareeyo kaliya waxaan taabanayaa dd macnaha waan delete gareeyay macnaheedu way waan soo celinayaa waxaan taabanayaa undo baan taabanayaa okay marka exampleskaas waa qaar kamid ah kuwa loo isticmaalay maxay ahayd qaabkaad wax uga bedelisay shayga kale maxay ahayd file-kaaga haddaan doonayo file-kayga xaggiisa hore inaan ka bilaabo waxaan taabanayaa e capital ah kadibna wuxuu tagayaa line-ka xaggiisa hore okay haddaan doonayo tusaale ahaan kale inaan replacement sameeyo oo tusaale ahaan kale xagga aan taaganahay kaliya waxaan taabanayaa r marka taabto magaca waxaan ku bedelayo ayaan taabanayaa let's say h baan taabtay laakiin imika inaan bedelo ma baahni kaliya waan soo celinayaa okay waxaan soo aragnay casharkeena vi editorku waxa uu yahay iyo waxa uu qabto sidoo kale waxaan soo aragnay practicalkii maanta hadaba casharkeenu intaas ayuu ku saabsanaa vi-ga qaabkaad u isticmaalaysid iyo tagaskaaga qaabkaad wax uga bedelaysid intanoo kaliya maaha kaliya waxaan ku tusay inta ugu muhiimsan inta kalena adiga ayaa ku darsanaya okay waxaa jirta uma baahnid inaad commands-ka hadda aan qornay oo dhan inaad xifdidid kaliya waxaad u baahan tahay inaad practice samaysid fara badan kadibna waa iska fahmi doontaa okay linkigana waan soo dhigi doonaa description-ka halkaad ka helaysid iyo qaabkii aan casharka u sharaxaynay maxay ahayd halkan ka soo qaadanay okay haddaba haddii aad ka heshay casharkan uu faa'iido kuu noqday fadlan la wadaag asxaabta kale sidoo kale anagana subscribe noo saar iyo share intaba waad mahadsantahay